dadkiina dhinta wanaagooda sheega waxaan looga jeedaa inuu ilaahay wanaagoodaasi jannada ku geeyo waa ducada ka mid wuxuu ahaa ninka qura ee beriga hatwadaga xisbiga ahaa ee jimcaha oran jiray kaale muriska akhrina meesha loo joogo marka nin diintiisana taa ku haystaa uu ahaa dadka ilaahay u fudeeyay bini aadmiga xiriirkooda oo qofna kala cororanba ilaahay waxaan uga baryaynaa wanaaga uu lahaa dabeecadda afka ku lahaa inuu jannadii ku geeyo qoyskii iyo raggiisii iyo dumar hablow dhalayba ilaahay u samriye baan ka siiyo ilaahay wayna ilaahay raajicuun maanta marxuumka mawliid ilaahay uu naxariisto qoyskii iyo qarankana ilaahay samriye baan ka siiyo dadkiina dhinta wanaagooda sheega waxaan looga jeedaa inuu ilaahay wanaagoodaasi jannada ku geeyo waa ducada ka mid islaamka waxa ka mamnuuca qofkii dhintay waxa leexi ka dhaxeeyay ka saamaxdo wixii wanaag lahaan oo sheegto oo maanta wuxuu baahan yahay duco iyo wanaag in la sheego oo la xuso wuxuu dadka u taray mawliid waan ka weynaa waxaan ugu yimid xamar markuu ardayga ahaa soo galay anoo weyn shaqaysta ahoo garaada leh ilaa maalintii waxaa la jaamacada ka baxay wuxuu bartay social science iyo international relations haddana laba diblooma kale ku qaatay markuu ingiriiska tagay uu ka sii qaatay deetana researcher buu soo baxay markii uu bartay in yar buu xisbiga hantooda kacaanka joogay ka bacdina wuxuu noqday gudoomiyihii degmada Afgooy anna waxaan joogay Daafeed 60 kilomitir way soo jiraa muddo 4 sano inta ay soo jiray ilaa ku guursanay wuxuu arru ku dhalay iyo intii ka dambeysay markii dalka laga soo noqday xorriyadana ragga aqoonyahanka ah haddii sharciyo dokumenti la qorayo markii dawladdeena ciyaaliyo kaanu hayn raggii ugu dadaalka badnaa quraanka qorayba ama ha ahad research xeerarkii Soomaaliland ay lahayd ama international documents wixii la helay ee Soomaaliland gooristaageeda ku jira ama wixii looga baahan yahay cid la xiriiro wuxuu la shaqayn jiray qolo Hindiya oo professor Hindiya oo sharciga oo yaqaan uu leeyahay wuxuu ka mid ahaa kooxdii loo qaybiyay isaga iyo nin sheekh oo imika masaajidkaasi tukiya ila dhisay buuga ugu weyn ee Soomaaliland dacwadeeda lagu qoray qoladii ku daashay ahayd bishar iyo bilaha dul fadhiday inta marka dhaafo wuxuu ahaa ninka qura ee beriga hatwadaga xisbiga ahaa ee jimcaha oran jiray kaale muriska akhrina meesha loo joogo waxa politiga galay kuwa dambe waan iskhilaaf riwaar isku qaban mar walba isku qosli ka hormanaya idinku isku xanaan ninka yaqaan uu yaqaan ilaahay waxaan uga baryaynaa wanaaga uu lahaa dabeecadda afka ku lahaa inuu jannadii ku geeyo qoyskii iyo raggiisii iyo dumar hablow dhalayba ilaahay u samriye baan ka siiyo inaga nagu daba naxariisto dariya dad baa Allah inoo barakeeyo shuushku hay naga baxo ilaahay dal xorriyadiisa hela oo dadkiisu isjecel yahay oo horumar sameeyaha naga dhaw wixii naga dhintaa Allah xaristo naga daba naxaristo sallallahu ala sayidina Muhammad shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii billaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay